madaxweynuhu ummadda Soomaaliyeed ka xisho annagana naga xisho adduunka ku aqoonsan inaan madaxweyne Soomaaliyeed tahayna ka xisho walaalow dhulkan arrimihiiska dhaxbax ee naga jooji dadka la caburinayo masaakiinta la barakicinayo qeyl dhaanta yeerayso islaamaha umulaha oo seexala amsi ajada la burburinayo dadka loo awood sheeganayo waxaad u malaysiin inay meecla dhacayaan maya trigger u baahan yihiin waa taraq yaro guri gaas ka buux lagu daaray wax kiciye kaliya u baahan yihiin mana naqaan xilliga dhacayso saas daraadeeda waajib wuxuu naga saaran yahay kuwa dabaqyada dhisaaya kuwa dhulka boobaya kuwa ganacsiga xalaasha ku jira kuwa nolosha ku jira nolosha iskuma halay kartid haddii dulmi agteeda lagu hayo saasa waajib waxaan ugu ah inaan dulmiga ka wada hor nimaadno haddaa oday dhaqan oo damiir la tahay haddaad sheekh caalim oo damiir la tahay haddaad ganacsade damiir la tahay haddaad bulsho reeya damiir la tahay haddaad qareen damiir la tahay haddaad saxafi damiir la tahay haddaad qof kastoo muwaadin Soomaaliyeed damiir tahay dulmiga intuusan duminin waa inaan ka hortagnaa oo aan ka wada gaarnaa haddii kale waana wada duminaya dalkan ayagoo saas daaraha u dhisan yihiin oo ka qurux badan yihiin laamiyada ay ka qurux badan yihiin nolosha ay ka fiican tahay yaa lagu kala tegay waxa lagu kala tegayna waxay ahayd dulmi saas daraadeed waxaan mar kale ku celinaynaa oo madaxweynaha ugu baaqaynaa war madaxweynuhu arrinta dhulka iyo barakaca jooji midda labaad ku baaqaynaa waxaa waaye itaaliyarida dowladda markaa dulmi ku jirto oo musuq ku jirto oo eex ku jirto wax ka tabar yar male